Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Midhaha karawiye ayaa ah midho waqti badan laga soo isticmaali jiray dacallada adduunka, waana midho aad looga jecel yahay wadamada Bariga Dhexe. Waana midhaha caanka ku ah waxtarka la yaab kale ee Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala u geliyay. Waana midhaha aad ku dhex arki doonto buugaagta laga qoray caafimaadka, gaar ahaan dhinaca heerbalka. Waana midhaha lagu daweeyo bararka uu sameeyo qanjirka tayroodhku marka uu xanuun yeesho, iyadoo marka midhahan lagu daweynayo xanuunkaas inta midhaha la daqiijiyo kadibna lagu darsanayo biyo diirran lana cabayo muddo hal bila oo xidhiidha. Waana midhaha lagu daweeyo casiraadda caloosha iyo dhammaanba noocyada kala duwan ee xanuunka gaaska. Waana midhaha lagu daweeyo qufaca tagi waaya iyo riiraxyada joogtada noqota. Sidoo kalena waa midhaha awoodda ugu badan siiya difaaca jidhka, isla markaana fura oo meesha ka saara cunto xumida ama dadka ay cuntadu ka xidhan tahay. Waana midhaha lagu daweeyo shubanka ku dhaca carruurta yaryar. Sidoo kalena waa midhaha waxtarka weyn u leh hooyada ilmaha nuujinaysa. Waana midhaha loo cuno kaliya xanuunka iyo dhagaxaanta gasha kaliyaha. Sidoo kalena waa midhaha xakameeya unugyada fidiya kansarka, inkastoo Ilaahay cudurka iyo caafimaadkaba hayo. Sidoo kalena waa midhaha gebi ahaanba meesha ka saara calool istaagga loo maara waayey. Waana midhaha kaxeeya oo dejiya xanuunada laga dareemo kala goysyada jidhka, dhabarka iyo rheumatismka. Haddaba marka la isku daro midhaha geedka karawiye iyo malabka ayaa lagu sheegay kuwa qiimo sare ugu kacaya caafimaad qabka jidhkeenna. Aynu soo qaadana 10 faa'iido oo ay jidhka u leeyihiin midhaha geedka karawiye iyo malabka la isku daray. Waxaanay kala yihiin: 1. Waxay u wanaagsan yihiin hooyada ilmaha nuujinaysa, iyadoo la sheegay hooyada ilmaha nuujinaysa ee karawiyaha isticmaasha inuu ilmuhu ka helo caano badan oo faytamiino iyo borotiino badan u leh ilmaha yar. 2. Dadka waqtiyada qaarkood dareema xasaasiyadda ama cuntooyinka qaarkood ka qaada xasaasiyadda ayaa la sheegay inuu anfacayo midhaha geedka karawiye. 3. Dadka qaba xanuunka gaastariga iyo dadka ka cabanaya xanuunada kale ee caloosha ayaa la sheegay inuu aad u anfacayo cabitaanka midhaha geedka karawiye. 4. Karawiyaha waxaa ku jira maadooyin badan oo u fiican caafimaad qabka wadnaha, hoosna u dhiga halista subagowga dhiigga. 5. Karawiyuhu wuxuu dheefshiidka ka caawiyaa inuu soo daayo dheecaanada burburiyayaasha ee u fiican dheefshiidka. 6. Cabitaanka karawiyuhu wuxuu meesha ka saaraa dibirada uu keeno nooc ka mid ah gaastarigu ee dadka qaarkood kusoo noqnoqota. 7. Cabitaanka karawiyuhu wuxuu meesha ka saaraa casiraadda caloosha iyo cillad kasta oo dhinaca caloosha. 8. Cabitaanka karawiyuhu wuxuu meesha ka saaraa qufaca, hargabka, riiraxyada iyo neefqabatinka sanka. 9. Cabitaanka karawiyuhu wuxuu furaa cunto cunista, waxaanu hoos u dhigaa calool istaagga badan. 10. Cabitaanka karawiyuhu wuxuu jidhka siiyaa firfircooni iyo karti badan. Waxaanad u isticmaali kartaa 2 qaab oo kala ah: inaad karawiyaha daqiijiso kadibna aad ku darsato cabitaanadaada si joogto ah, iyo inaad karawiyaha sidii shaaha oo kale u kariso kadibna aad ku darto malab saafi ah kadibna aad cabto hal koob. Mahadsanidin.